maanta laga bilaabo dalka Mareykanka waad soo gali kartaan anaa tahayni sheegay waa xaqiiq weeyaan haddii aad ku hamiyeysay mar inaad lugahaaga aad soo galiso dalka Mareykanka maanta waad soo galin kartaa xuduud kasta oo dalka Mareykanka laga soo galayay waad ka soo gali kartaa maanta. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو نقد وناكسن أو حيسلة وولكن حسين عبد الحسن هدي أتشارك يكون عصبتهاي أو مركي كوجوري سيد صوب وقطع قروينا channel كي سايت هاي سبسكرايب كتابو فيديو كنا شير كره لايك تنوع بلاش هذا حسكف ولا يسويه رأيك أنا كومنت كي يصور هدي تيم قروينا هراء عدو قامي ده هيدو حكولي هاي وقت تجاجه يتايم كي يكون هاي إيميل كستود شوكتو إيميل كستود فردو حكولي يقوى على أنت عمر كان كي معطو بريهان يوتيوب كيجا وحبا ما سوقلين فيديو أيان هبين رويد سوقلي فيديو جاس أن سوقلي واي إنه ده يوتيوب كيجا وحبا ما سوقلين لكن هذا أصحاب تيدا أما يقول حرن أما كوي هراي لتشوي أما كوي هذا يقول صبيرة وحلا هاي وحنا اللي قبل نقاضي يا إن الفيديو يدا أما روايد هالنقدان أما وحياله كلها نقدان وحساسية ودتكو waxay u jecel yihiin boofiska iyo waxyaalaha qosolka ah waxyaalahaas in naga shaafin doono iyo su'aalaha kulay aanu qof isla weyn ma yihi qofkii arkay way arkay qofkii aanan aragno waxaan jecelahay maalin intaan is aragno oo dee wuxuu iga aaminsan yahay ama wuxuu iga arko kulay tooro uu sheegi doono intaas markaan ka yimaado warkan nihaya waa noocma asxaab badan oo Yurub ku nool ayaa jira dad kale oo badan oo qaaradaha kale ku nool ayaa jira ama Soomaaliya ha noqoto ama meelo kale ha noqoto asxaabta boofiska dhoofka aadka u jecel ama dalka Mareykanka inay aad soo galaan jecel war farxad leh oo rarkii hore aan sheegi jiray ama dad naabuli jiray inay mar lagu hooga ay soo galin doonaan dalka Mareykanka ayaan war xasaasiyay warkan anu horta markaan soo fadhiisto meeshaydan war asxaabta galaya inaan u sheego ma jecelahay war beenbeena iyo views aan dadku ha kugu siiyaan iyo waxaas ma jecli waxaan jecelahay wax dadkay aan kaga qoslin karo oo riwaayad ha noqoto ama war xasaasi oo qof su'aal intuu soo weydiiyay dhowr su'aalood oo isku wada mid noqday sideeda inaan uga jawaabo aan jecelahay way jiraan dad kale waxa weeyaan qofku hadduu wax ku soo weydiiyo inaad sideeda uga jawaabto ayaa fiican dadka qaarkood ee su'aalahooga intay soo weydiiyaan uga soo jawaabi waayena iyana wax kale arkin maadaama nin family aan ahay oo waqtiyadayda ay iska waad fahmi kartaa nin family ah laakiin waxaan jecelahay inaan wararka xasaasiga ah ee runta ah ee wax walba ku salaysan inaan nii soo gudbiyo inaguna inaad iga caajisin oo mar walba fiidiyoga markaan soo galiyo like ku sii qabataan oo sii share gareysaan si asxaabtiina kale iyo dadka kale ay u arkaan fiidiyadeyda intaas aan niga codsanayaa inta markaan ka yimaado war xasaasi ah oo dadkii asxaabteyda ahaa ama dadka Yurub jooga ee jeclaa in ay mar lagu hooga ay soo galiyaan America aad ugu haweynaa waxa la yahay maanta laga bilaabo dalka Mareykanka waad soo gali kartaan anaa tahayni sheegay waa xaqiiq weeyaan haddii aad ku hamiyeysay mar inaad lugahaaga aad soo galiso dalka Mareykanka maanta waad soo galin kartaa xuduud kasta oo dalka Mareykanka laga soo galayay waad ka soo gali kartaa maanta waxaad uga soo gali kartaa Joe Biden waa furay oo wuxuu yiri xuduudihii dalka Mareykanka dadka qaxootiga raba dalka Mexico ka soo galayay way soo gali karaan xuduudahana waa la furayaa maanta laga bilaabo ku bishaaraysta inaad soo gali kartaan dalka Mareykanka dadkii awal soo gali jiray xuduudda xagga iyo Mexico inta ka soo maraan soo talaabi jiray intii Trump wadankan dalka Mareykanka uu haystay way xidhnayd oo waa kii odaygu qab ka dhigay xitaa qaxootiga la soo geeyay kala xiray marka hadda wuxuu ballan qaaday Joe Biden oo uu sheegay in uu xuduudda furi doono oo dalka Mareykanka la soo gali doono sidii caadiga ahayd dadkii qaxootiga ahaa ay iska soo gali karaan marka haddii aad ku hanweynayd dalka Mareykanka inaad soo gasho maanta laga bilaabo waad iska soo gali kartaa
meel kasta ka soo gal arizona ka soo gal texas ka soo gal california meel walba haddaad rabto ka soo gal waa caadi weeyaan inkastoo duqa texas uu ka hadlay oo uu yidhi uu yar diidayey dadkan xaggan xuduudda texas ay la leedahay mexico ee ka soo gelayay uu yar diidayey odayga duqa magaalada texas laakiin markii dambe odaygu wuxuu ku soo biyo shubtay wixii soo gala ee xaggeegan ka soo gala uu sheegay haddii ay soo galaan barteedan inaan sida ugu dhaqsaha badan le intaan basasuu soo saarno washington dc keeni doono ayuu sheegay markaa cid la celin doono oo waddanka maraykanka intay xagga iyo mabsika ka soo gashay kadibna dalka soo gashay oo dib waddanadoodii loogu mastaafurin doonaayo ma jiri doonto qof waliba bartanuu ku nagaadi doonaa wuu ka shaqaysan doonaa fursado aad iyo aad u badan oo dalka maraykanka ka jira ayaa jira oo qofku markuu yurub ku nool yahay uu dalka maraykanka ku dhaamo xagga shaqada xagga waxyaalo badan dee adugu waad iska fahmi kartaan anugu yurub waa soo arkay maraykanna waan arkay laakiin maanta meel aan maraykan ku doorsan karaayo ma jirtid xaqiiqatan weeyaan marka asxaabteeda waxaa leeyahay kuwii buufisku hayay reer buufis maanta laga bilaabo waar soo gala meeshu way furantay wayna waxa weeyaan caadi baad u soo gali kartaa noo soo galaniyo waxaana arrin maahe fideogan haddaad aragto ood indhaha ka qaado waxaa ku leeyahay war sii sheergaree laygtana siiya waxaana iniga ballan qaadaya hadduu ilaahay idhaahdo inaan fideoyadayda riwaayadaha ah ee qosolka ah ee goosgooska ah inaan bartan nigu soo xidhi doono wixii kale xasaasi ahna meeshan iga soo weydiiya dee waxaan ilaa arrin maaha waad iska soo fadhidaanuune waan isalaamayaa meel kastoo aad joogtiyo wakhti kastoo inii tahayna waxaan leeyahay